madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay garsoorayaasha dalka. kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la yeeshay garsoorayaasha dalka ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda sare dalka Abukaate Ciidid Cabdilaahi Ilka Xanaf, iyadoona sidoo kale ay kulankani xaadir ku hayeen 450 garsoore iyo xeer ilaaliyaasha hay'adaha garsoorka ee dalka Soomaaliya. ugu horeyn mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa warbixin ka dhageystay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Ciidid Cabdilaahi Ilka Xanaf, isagoona sheegay in marxalad adag ay ku shaqeeyaan garsoorayaasha dalka. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa tilmaamay in cadaaladda ay tahay meesha ay ka dhismayso horumarka dalka una hormuud u noqon doono cadaaladda si dalka uu horumar u gaaro. wixii saxda ahay inaan sameynayno oo systemkeena cadaaladda ee jiraahay wixii uu qabay oo qawaaniinteenu ay tilmaamaysa inaan sameynayno inaan ku qanacsanahay horta annaga koow. intaas kadib adduunka waa ka gedi karna waa dhigi karna annagu systemkaanaan leenahay. systemkaas aan leenahay dalalaa oo dhibaya adduunyada waad ogtihiin dil toogashaa wadamo mamnuuc ka yahay, wadamo waa ka jiraa, wadan dhexdiisa waxaa jirto dhinac gobolana dilka toogashada oo mamnuuc ka yahay, gobolana dilka toogashada muxuu ahay xukunkiisa uu soconaya. adduunyada waa kala duwanta ummad waliba systemka cadaaladda ee u shaqaynayo ee duruufahooda markaa jira iyo xaaladda dadkooda ay ku sugan yihiin ka jawaabaya waaye waxa oo muhiimadda leh. waxaan rabnaa markaa annagu systemka aan leenahay hadday wax ka dhiman yihiin inaan horumarsanno, quruxsanno, wixii ka dhiman aan ku darno, wixii maalin walba adduunyada ku soo kordha aan ku darno. nolosheenna iyo qaabkeenna dowladnimada iyo qaabkeenna cadaaladda shalay hadduu kan maanta ka duwan yahay kan maanta waxa ku habboon inaan la nimaado annagaa nalaga rabaa. laakiin waa inaan leenahay system aan ilaalinayn waa inuu jiraa, lana wada yaqaano dadku ay garanayaan. ma aha waxa ninka garsooraha madaxiisa ku jira, ma aha xubnaha guddiga adeega garsoorka waxa madaxiisa ku jira. waa inuu jiraa system cadaaladeed oo la yaqaano meesha yaallo oo qofku inta kutubkiisa soo qaato gidgidiyo uu garan karo dembigaas hadaad gashid ciqaabta ka imaanaysaa waa 1 iyo 2 iyo 3 dadku ay garanayaan. wuxuu ku saabsanaa shirku garsoorka iyo madaxweynaha ayaa kulmay. waxayd markii ugu horreysay garsoorka iyo madaxweynuhu ay kulmaan. guddiga adeega garsoorka, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, maxkamadda gobolka, 13 degmo oo degmo walba laba garsoore joogaan ayay ahayd. qiyaastii dad ilaa 250 oo garsoorayaal ayaa meesha joogay. marka waxa weeye markii ugu horreysay marka anigu waxaan u sheegay madaxweynaha meesha uu marayo, heerka uu garsoorku marayo. waxaan u sheegay in madaxweynihii hore uu dhisay garsoorka ilaa xad oo guddiga adeega garsoorka, maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, maxkamadaha gobolka iyo kuwa degmooyinka oo dhan 2010kii 2010kii madaxweynihii hore uu dhisay. kadib markaan anigu u nadaamiyey aan u geeyey oo ahayd markaan anigu imi meesha madaxweynihii horena yimi garsoor ma jiro, dad magacaaban macnali ma jiro. markaasaan wada magacawnay 13 degmo iyo muxuu ahaa gobolka banaadir, maxkamadda sare iyo guddiga adeega garsoorka. Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay garsoorayaasha dalka inay ka fogaadaan wax isdabamarin iyo wax walba oo dhibaato u keenaya cadaaladda.